idinkugu haynana waxaa ka mid ah ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe Stephen Witkoff ayaa magaalada Moscow wuxuu wada hadallo xasaasi ah kula leeyahay mas'uuliyiinta waddanka Ruushka iyadoo xiisad culusna ay u dhaxayso labada dhinac maalinta Jimcaha waxaa ku eg xilliga uu qabtay Donald Trump ee ku aadan in dagaalka si degdeg ah Ruushka uu ku joojiyo haddaba arrintan ma suurtageli doonta haddii aysan dhicin arrintaasi maxaa imaan doona waxaynu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo falanqayn la xiriirta xiisadda ka dhex aloosan Mareykanka iyo Ruushka xagga Israa'iil haddii aynu eegno Netanyahu ayaa cadaadis iyo culays weyn waxa uu kala kulmayaa ciidamada iyo dadweynaha iyo weliba mucaaradka qorshihiisa ku aadan qaabsashada Mareykanka Gaza arrinkaasi oo lagu tilmaamay mid Israa'iil dhiiqa sii gelinaya isla markaasna halis gelinaya nolosha maxaabiista lagu haysto Mareykanka Gaza wadahadallo xasaasi ah oo ay yeesheen Netanyahu iyo abaanduulaha ciidanka Israa'iil ayaa la sheegayaa in horumar weyn aan laga gaarin waxaana la filayaa kulan degdeg ah golaha wasiirada Israa'iil inay yeeshaan waxaana sii kordhaysa cambaarinta caalamiga ah ee dunida oo idil ka imaanaysa Israa'iil dhinaca kale waxay sii wadaa duqeynta iyo weerarada arxanka daran ee ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta Hezbollah waxay mar kale soo saartay bayaan ay si adag uga hadlayso inaysan aqbalayn inay hub ka dhigto xaaladan ayaa laga cabsi qabaa in Lubnaan lugaha u geliso qalalaaso hor leh dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha iyo waliba falanqayntii ayaan idinkugu haynaa barnaamijka wararka weyn bayaan uu soo saaray ururka Hezbollah ayaa ku gacan sayray warar ka soo baxay xukuumadda Lubnaan oo ah inay raadinayso qorshe ay hubka uga dhigto ururka Hezbollah dabeeqada sanadkan 2025 waxaana Hezbollah ku sheegaysaa arrintaas inay tahay khalad weyn oo waxyeello weyn gaarsiinaya madaxbannaanida waddanka Lubnaan ururka Hezbollah ayaa sheegay in arrintaasi ay uga jawaabayaan iyo go'aankaasi inay u tixgelinayaan wax aanan jirin dhanka kale ururka Hezbollah ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo wada hadallo istiraatiiji qaran oo la xiriira xagga amniga oo lagu soo afjaray waxa uu ku sheegay Israa'iil xadgudubka ay ku sameynayso dhulka Lubnaan iyo in laga shaqeeyo sidii dib loo dhisi lahaa goobihii uu cadawgu burburiyay xukuumadda Lubnaan ayaa shir yeelatay 4 saac ka hor oo uga wada xaajoonaysay arrimaha la xiriira hubka waxaana si weyn looga hadlay hubka dhigista ururka Hezbollah taasoo qayb ka ah hindiso ay soo gudbisay dowladda Mareykanka si kastoo ay tahay kulankii markii uu dhamaaday ra'iisul wasaaraha waddanka Lubnaan Nawaf Salam ayaa sheegay in wada xaajoodka la xiriira arrintaasi dib loo dhigay wakaaladaha wararka ee reer galbeedka ayaa soo xiganaya saraakiil Israa'iiliyiin oo sheegaya in kulan uu dhex maray ra'iisul wasaaraha Netanyahu iyo madaxiisa ama wasiirkiisa arrimaha sirta Gadi Zamir waxaana laga wada hadlay hindise si buuxda ay Israa'iil oo la wareegayso Mareykanka Gaza Zamir ayaa digniin ku bixiyay kuna siiyay Netanyahu in la qabsado Mareykanka Gaza oo dhan waxay waxyeello yeeli kartaa wiiri maxaabiisteena lagu haysto Mareykanka Gaza dhinaca kale wargeyska Israa'iil yoom la yiraahdo oo soo xiganaya ilo militariga ayaa sheegaya in abaanduulaha ciidamada Israa'iil Eyal Zamir laga yaabo inuu soo bandhigo xukuumadda khataraha ka imaan kara in la isku ballaariyo Mareykanka Gaza Zamir ayaa waxa isku dayay inuu ka dhacdhiciyo golaha amniga in xoog lagu qabsado Mareykanka Gaza aynan waqtigeedu sax ahayn Zamir ayaa sidoo kale ka hadli doona inta ay qaadanayso in ciidamadu ay xoog u qabsadaan Mareykanka Gaza wargeyska Britain ka soo baxay yiraahdo Financial Times ila uu soo xiganay ayaa sheegaya in militariga Israa'iil uu ka soo horjeedo qorshayaasha uu soo jeediyay wasiirka difaaca Israa'iil ee yiraahdo Israa'iil Katz ee lagu abuurayo magaalo bini aadanimada loogu talagalay Mareykanka Gaza iyo in dadka reer Gaza loo raro magaaladaasi ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa qaban doona
golihiisa wasiirada shir ay kaga hadlayaan amniga, waxaana laga wada xaajoon doonaa tillaabooyinka xiga ee militariga ay tahay inay ka qaadaan howlgallada Gaza sida xafiiskiisa laga soo xiganayo. intii kulanka lagu jiray ayaa golaha wasiirada waxaa lagu waramay in laga filayo inay ansixiyaan in la qabsado si buuxdana loo qabsado marinka Gaza marka laga gudbo inay ka soo horjeesteen ciidamada saraakiishooda iyo abaanduulaha ciidamada qalabka sida, waxaana digniin lagu bixinayaa tillaabadaasi inayna istaahilin khasaaraha nafeed ay geysanayso iyo in la qabsado marinka Gaza oo dhan khasaaraha ka dhalanaya. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Yair Lapid ayaa sheegay in uu ku wargeliyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu mar ay kulan kooban yeesheen in la qabsado marinka Gaza inay tahay fikrad aanan wanaagsanayn. waxa uu sheegay in xukuumadda Israa'iil in dagaal la geliyo waa in ay mujtamaca intiisa badan ay isku raacsan yihiin oo ay taageersan yihiin ra'iisul wasaaraha. haddii shacabka Israa'iil aynan xiiseynayn dagaalkaasi, waxa weeye ra'iisul wasaaraha waxaan u sheegay inuu dagaalkaasi macno yeelan doonin. ayaan u sheegay buu yiri ra'iisul wasaaraha. wuxuu sidoo kale u sheegay in qiimo weyn ay tallaabadaasi ku fariisan doonto oo khasaaro weyn gaarsiisa Israa'iil, taasoo xagga dhaqaalaha iyo xagga tirada dadka naga dhimanaya ee dagaalkaasi uu horseedi karo. taa beddelkeedii looma baahna buu yiri in la galo in xoog lagu qabsado marinka Gaza qorshe ah. Lapid ayaa waxa uu sheegay Israa'iil waa in ay ogolaataa wadamada Carabta inay maamulaan marinka Gaza si ciidamadeena agala soo baxno aan waqti u gelino in aan ururka Xamaas ka takhalusno. wararka caalamkana waxaa ka mid ah wadahadaladii dhex maray madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin iyo ergeyga gaarka ah ee wadanka Mareykanka Steve Witkoff ayaa lagu sheegay inay ahaayeen kuwa waxtar leh oo wax ku oola, sida uu sheegay ninka kaaliyaha ka ah xafiiska siyaasadda aqalka looga taliyo wadanka Ruushka ee Kremlinka siyaasaddiisa arrimaha dibadda Yuri Ushakov. Witkoff ayaa 3 saacadood oo kulan wada hadalla la yeeshay Putin 2 maalmood ka hor inta una dhammaan waqtiga kama dambaysta oo madaxweynaha Mareykanka uu qabtay in xukuumadda Ruushka ay ogolaato in nabad Ukraine laga hirgeliyo ama cunaqabatayn cusub lagu soo rogo. Ushakov ayaa u sheegay warbaahinta wadanka Ruushka in labada dhinac ay ka wada xaajoodeen colaadda wadanka Ukraine iyo sidii xiriirka Ruushka iyo Mareykanka lagu hagaajin lahaa. wuxuuna sheegay dowladda Ruushka in ay heshay calaamado ka yimid ama fariimo ka yimid madaxweynaha Mareykanka oo taa beddelkeedina loo diray fariimo. waa hagaag maxamed waa mahadsan tahay, daawadayaashuna way mahadsan yihiin mar kale.